السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنالك مركز سود وهذا أدي هذا وما هتسنتهين مقال كان وحر بقى إن ندخل وذاقو حجوم رياك بحتان كعيدا ماذا آيس قبل كمينيسوتا إلا يهدا دولده إمسا عسكري أو عيدا ماذا آيس أي كقاضي أرنتا سواها كهذلي نينك ترام وحل ساري أرمها قبل كمينيسوتا توم هامان sidoo kalena waxaa jirta in wasaaradda amniga gudaha miisaaniyadii laga jartay maadaama Congress-ka labada xisbi ay isku raaci waayeen qaabkii lacag loogu ansixin lahaa iyo isbedelka lagu sameynayo dimuqraadiyiintu maxay dalbanayaan sidoo kalena arrintaasi Tom Haman wax laga weydiiyay muxuu ka yiri arrimaha maskaratiga ciidamada ICE ay xiranayaan sidoo kale waan idin la wadaagaya miisaaniyadan laga jaray wasaaradda amniga gudaha ICE ma saameynaysaa maadaama ay jirtay lacag sharcigeeda big beautiful bill-ka loo ansixiyay sidoo kale waan idin la wadaagaya waxa jirta qaar kamid ah xubnaha dimuqraadiyiinta ee ku jira baarlamaanka gobolka Minnesota oo ay weheliyaan qareeno iyo dad ganacsiyada yaryar oo saaka shir jaraa'id qabtay sheegayna dawladdu in awoodeeda ay si xadaaf ah u isticmaashay markii ciidamada ICE iyo kuwa xuduudaha howlgallada ay ka wadeen gobolka Minnesota arrimahaasi waan idin la wadaagaya bal waxaan unahay qamiistii ninka Trump uu xil saaray arrimaha gobolka Minnesota Tom Haman oo aqalka cad u qaabilsan arrimaha masaafurinta iyo waliba xuduudaha ayaa waxa uu sheegay in ciidamada ICE toddobaadkan gabi ahaanba ay isaga bixi doonaan gobolka Minnesota haddaba shalay ayaa waxa uu wareysi uu siiyay telefishinka CBS gaar ahaan barnaamijka Face the Nation la yiraahdo waxaana wax laga weydiiyay halka ay marayaan ka bixitaankii ciidamada ICE ee gobolka Minnesota waxaana uu sheegay ilaa ay hadda in 1,000 askari laga qaaday gobolka Minnesota waxa la qiyaasay ku dhawaad 3,000 askari inay joogeen waxaana uu sheegay maanta oo Isniina iyo Talaadada oo bari ah in boqolaal kale laga qaadi doono marka waxa uu yiri waan yareyn doonaa ciidamada kuwa yar ayaanan uga tagi doonaa oo baaritaanada socda iyo haddii ay jiraan dad khatar ku ah ammaanka shacabka gobolka Minnesota inay soo qabtaan ayaa looga tagi doonaa marka waxa uu sheegay in inta badan la filayo toddobaadkan in la dhameystiro ciidamada ugu badan in laga saaro gobolka Minnesota marka Tom Haman oo ka hadlayay arrimaha ka bixitaanka ciidamada ICE oo sheegay ilaa hadda 1,000 askari in la qaaday waxa uu yiri waxa sidoo kale wax laga weydiiyay xirnaanshaha wasaaradda amniga gudaha oo ciidamada ICE-na ay hoos yimaadaan waxa uu sheegay arrintaasi aqalka cad iyo Congress-ka ay u taala ayuu yiri laakiin arrinta muhiimka waxay tahay waxa uu sheegay isaga nafsad ahaantiisu in uusan jeclayn maskaratiga laakiin waxa uu yiri waxa badatay hanjabaadaha iyo sidoo kalena qatarta ciidamada ICE ee howlgalla wada sidaas darteed si ay u difaacaan ammaankooda oo wajigooda aan loo arkin ay maskaratiga u xiran yihiin waxaana uu sheegay isaga nafsad ahaantiisa in uusan maskiga jeclayn waxyaabaha xisbiga dimuqraadiga ay ka dalbanayaan aqalka cad waxa kamid ah in ciidamada ICE loo sameeyo ID ay xirtaan iyo waliba oo lagu aqoonsan karo kaamarooyinkana loo xiro dhar lagu aqoonsan karo oo gaar ah oo uniform ah loo sameeyo sidoo kalena in laga mamnuuco ciidamada inay maskaratiga xirtaan waa ciidamada ICE oo wajigooda ay ku qarinayaan waxa la leeyahay wax sharci ah hadii ay sameynayaan maxay wajigooda ay u qarinayaan sidoo kalena inay joojiyaan in bulsho gaar ah ay bartilmaameedsadaan ama dadkan waa madow waa Soomaali ama waa Latino arrintaasi inay joojiyaan oo racial profiling sidoo kalena waxa ah sharci ah in warrant uu garsoore maxkamadeed soo saxiixay in ay adeegsadaan marka ay doonayaan in goobaha sida gaarka ah loo leeyahay sida guryaha dadka inay galaan arrimahaasi ay dimuqraadiyiinta ay dalbanayaan marka already hadda kaamarooyinka ICE way bilaabeen inay xirtaan laakiin arrintan maskaratiga ayaa muranka ugu badan uu ka taagan yahay iyo arrinta warrant inay soo qaataan marka ay doonayaan in ay galaan goobaha qaar sidoo kale waa kan Tom Haman oo isaguna ka hadlaya arrinta wada hadalka aqalka cad iyo Congress-ka u dhaxeeya oo ah isbedelka lagu sameynayo ciidamada ICE iyo arrinta la xiriirta maskaratiga ID-ga waxa uu sheegay sidoo kale in ay leeyihiin in jaakadaha ay xiran yihiin ICE inay ku qoran tahay ama FBI ama Border Patrol waxa uu yiri markastaba magaca ciidamada halkaas ayuu ka muuqanaya marka waxa uu sheegay arrintaasina inay tahay arrin Congress-ka iyo aqalka cad u taala isagoo arrimahaasi ka hadlayayna waxa uu yiri Tom Haman sidoo kalena wasaaradda amniga gudaha waxa hoos imaanaya hay'adda TSA-da waxa hoos imaanaya hay'adda maareynta masiibooyinka ciidamada xuduudaha
kuwa ICE dhammaantoodba hadda miisaaniyaddii waa laga jartay laakiin ICE waxaa la leeyahay waxaa jirta sharcigii the big beautiful bill lacag 75 milyan oo madaxweyne Trump 4 bishii July ee sanadkii hore 2025 uu saxeexay in ay ugu jirtay marka waxaa la leeyahay arrintan miisaaniyadda laga jaray hadda wasaaradda amniga gudaha ICE ma saameynayso maxaa yeelay lacagtaasi ayay haystaan lacagtan waxaa jirta sidoo kale in xarumaha dadka lagu hayo detention centreska in lagu ballaarinayo hadda la leeyahay goobo fara badan ayay weli dhisayaan marka arrintaasi ICE inaysan saameynaynin ayay u badan tahay sidoo kale dhinaca gobolka Minnesota ciidamada ICE intii howlgallada ay wadeen xadgudubyo fara badan ayay sameeyeen waxaa jirta hadda garsoore amar soo saaray xarunta dadka ICE marka ay qabtaan waxa ay geeyaan xaruntooda la yiraahdo Webel Building halkaasi oo dadka si ku meel gaar ah loogu sii hayo ilaa iyo inta sida Texas ama gobollo kale Louisiana loo qaadayo marka garsooraha amarka uu soo saaray waxa kamid ah qofka marka meesha la geeyo horta waa in registration number loo sameeyaa waxay sameyn jireen waxyaabaha hadda lagu qabsaday dawladda waxa kamid ah qofka marka ay qabtaan isla markiiba ay geeyaan Webel Building waa laga sii qaadaya diyaarad ayaa lagu qaadaya marka ay dadkii loo dacwoodo oo garsoore maxkamadeed uu amar ku bixiyo in qofkii la soo daayana way adkaanaysaa inay si degdeg ah ku soo daayaan marka waxa la leeyahay dawladdu amar maxkamadeed oo fara badan ayay jabisay oo dad la garsoore uu amar ku bixiyo in la soo daayo ayay haddana muddo xabsiga ay ku sii hayeen marka in registration loo sameeyo qofka ka hor intii aan laga qaadin qofkiiba waxa adagba in la helo meesha uu ku xiran yahay in la helo ayaa adagba isla markiiba waa la boodayaan sidoo kale waxa kamid ah in loo sameeyo luqado fara badan qofka qareen loo qabto isla markaana luqadaha sida Soomaaliga Ingiriiska iyo luqadahaas ay kamid yihiin qofkii waa in turjubaan loo helaa within 1 hour gudahood marka la geeyo xaruntaasi detention centerka waa in qareenkiisa access loo siiya sidoo kalena waa in aan xarunta Webel Buildingka aan laga qaadi karin 72 saacadood ugu yaraan 3 maalmood waa inaan laga wada karin maxaa yeelay haddii garsoore maxkamadeed uu amar ku bixiyo qofkaas in la soo daayo weli Minnesota ayuu joogaa waa la soo dayn karaa laakiin qofkii haddii Texas la geeyay waxay noqonaysaa soo celintiisii inay waqti dheer qaadato marka ilaa iyo 2 toddobaadna sidoo kalena qofku xitaa in ay suuragal noqon karto in lagu sii hayo goobtaasi oo si degdeg ah aan loola ordin amarka garsooruhu uu soo saaray ay arrintaasina ay ka mid tahay dhinaca kale xubnaha dimuqraadiyiinta ay ku jira baarlamaanka gobolka Minnesota iyo sidoo kalena hay'adan ACLU oo u dooda xuquuqda dadka shacabka ah ee madaniga iyo qaar kamid ah ganacsiyada yaryar ee shir jaraa'id qabtay mid kamid ah qareenada ACLU ayaa waxa uu sheegay in dawladdu ilaa iyo hadda xadgudubyo fara badan oo dastuuri ah ay sameeyeen isla markaana awoodeeda ay ku xadgudubtay waxa uu yiri ilaa iyo 700 oo cabasho ah ayaa na soo gaartay qodobo kamid ah dastuurka ayay dawladdu jabisay oo dadka ayay ku xadgudubtay waxana uu sheegay arrintaasi isla xisaabtan inuu jiro oo gobolku talaabooyin fara badan oo arrintaasi la xiriira uu qaadayo haddaba waa kan isagoo shirkii jaraa'id oo maanta ay xubnaha dimuqraadiyiinta ay qabteen isaguna uu qayb ka ahaa ka hadlay dhinaca kale xildhibaanad ka tirsan baarlamaanka gobolka Minnesota oo dimuqraadi ah iyaduna waxay sheegtay in howlgalkii ciidamada ICE in uusan weli dhamaanin welina qabqabashada ay wadaan waxayna xaqiijisay in xadgudubyo fara badan ay jiraan oo dawladdu ay sameysay gaar ahaan ciidamada ICE oo dadkii la iska afduubanayo la iska xirayo qofkiina la waynayaba oo meel uu ka baxay aan la garanayn arrintaasina waxay qayb ka tahay xadgudubka ay dawladdu sameynayso isla markaana awoodeeda ay ku xadgudbayso haddaba waa tan xildhibaanada iyadoo sidoo kale arrimahaasi ka hadlaysa aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo